بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كسو دوادا حلقة اللحاد تاريخ دي شيخ عبد القادر الجيلاني. waxaan ka sheekay doonaa casharkeennan haddii waqti noo saamaxo insha allah tilmaamihiisii ama muuqaalkii sheekha qaabka u ahaa iyo tilmaamihiisii kaleoo xagga akhlaaqda iyo dhaqankiisa wanaagsan ahaa, sidii uu kitaabka iyo sunnada dadku inay ku dhagaan u fari jiray, iyo caqiidadii sheekha. haddii aan ku hormoonno sifaadka ama tilmaamaha sheekh jiilaani xagga muuqaalkiisa iyo jirkiisa, sida ay soo guurinayaan culammadii taarikh yahanada ahaa, mathalan ibnu cimaad kitaabkiisa shadaraat dahabi uu kusoo guurinayo, ibnu wardi kitaabkiisa taariikhda uu kusoo guurinayo, ibnu qudaama uu soo guurinayo, yaafici uu soo guurinayo, iyo culimo kale oo badan waxay leeyihiin sheekh jiilaani tilmaantiisa markay ka bixinayaan wuxuu ahaa sheekhu naxiif aljism, jirkiisu caato ayuu ahaa oo ma buurnayn. cariid asadr, xabadkiisuna waa ballaarnaa. cariid alixya, garkiisuna waa weynaa. asmar, midabka leeraa ayuu ahaa. asmarku waa midabka cadaanka iyo madowga u dhexeeya. mudawar alwajhi, wejigiisuna waa u wareegsanaa. dhaat sawtin jahwariin, cod oo dheer uu lahayo xoog leh. wa samtin bahiyin, hay-ad iyo qaab oo maaragtay qurux leh uu ahaa. qaabka jirkiisu muuqaalkiisu qaab oo haybad lahu ahaa. wa qadrin caliyin, qadar iyo maaragtay kaloo yani sareeyo uu sheikhu lahaa, yani qof oo aad haybadiisa isaga dhan iyo sharaftiisa ay weynta oo ahaa. wa cilmin wafiyin, aqoontiisuna ay badan tahay. qaabkaas ayay markii la isku soo aruuriyo culammada taarikhyahanada kutubtaas taariikhda uga hadleen. markii la aado xagga yani akhlaaqdiisii kaleo dhaqankiisii, waxay sidoo kutubta taariikhda soo rarayaan sheekh cabdulqaadir jiilaani inuu ahaa mujaaba dacwa. dadka ilaahay subxaana wa tacaala haddii uu baryo ilaahay dacwadooda uu aqbalo, sida lagu yaqaano dadka adqiyada ah oo allah ka cabsado taqwada ku dadaala. sariica damca, ilintiisuna miday soo daada ogtahoo yacni qalbigiisu siduu u jilicsan yahay markii uu ilaahay cabsidiisa iyo uu qaabilo uu aad u ooyi jiray. daa'imulfikr, fakarkiisuna uu badan yahay ilaahay weynankiisa iyo makhluuqiisa iyo koonkiisa iyo nicmooyinkiisa isagoo ku fakaraya. daa'imulfikr nabiga calayhi salaatu wasalaam siirada sida ku jirta waa tii uu ahaa. qofka muuminkaana loo baahan yahay inuu markasta ku fakaro ilaahay nicmadiisa iyo koonkiisa. wayatafakaruuna fi khalqi asamaawaati waalardi, waa ka ilahay uga sheekeynayay. kathiir adikr, ilaahay xuskiisana mid badya ayuu ahaa. raqiiqa alqalb, qalbigiisuna uu jilicsan yahay. daa'ima albishir, farxaddiisu ay badan tahay markii uu bulshadii la dhaqmayo. kariima nafsi, naftiisu ay wanaagsan tahay oo naxariis iyo dhaqan wanaag iyo soo dhoweyn ah ay ka buuxdo. sakhiya alyaddi, gacantiisuna yani ay sakhi ay to macnaha sheikhu deeqsi uu ahaa, waa u tegi doonaa. ghaziira alcilmi, aqoontiisu ay badan tahay. shariif alakhlaaqi, akhlaaqdiisa dhan ay wanaagsan tahay. dayib alacraafi, caadaadkiisa iyo dhaqankiisu ay sidoo kale wanaagsan yihiin. maca qadamin raasikhin fi lcibaadati walijtihaad, yacni isagoo xeer sare yani ama meel sare oga jira xagga cibaadada iyo dadaalka, ama ha ahaato ijtihaadkii aqoonta cilmiga iyo dadaalbadida cibaadadii iyo khayrkii lagu dadaalo, uu sheikhu dadka aada ugu sareeyo ku jiro meesha safka hor oga jira. sidoo kale wuxuu soo guurinayaa saaxibu mir'aati zamaan, kitaabkaas sheikha iska leh oo yaafici, in raggii sheikha la kulmay mid ka mida uu leeyahay: maa ra'at caynaaya axsana khuluqan walaa awsaca sadran walaa akrama nafsa. aniga labadeeda indhood ma saarin uu yihi sheekh jiilaani, waa dadka da la kulmay qofka akhlaaq wanaagsan anigu dadkan la kulmay kuma jiro. qof ka qalbi nadiifsan oo ka qalbi ballaaran oo qalbigiisa uu qaadayo, yani
awsaca sadran yacni qofka markii uu qalbigiisu nadiif yahay oo wax badan uu qaadaya la yaraa kana naf wanaagsanoo xagga dayibnimadka iyo wanaagiisa walaa actafa qalban yacni qof ka turid badan oo uga dhimri og bulshada ma aana arkin uu yidhi walaa axfada cahdan wawuddan qof oo ballanka iyo jacaylkii iyo xiriirkii idinka dhexeeya ka ilaali og ma aana arkin min sayidina asheekh cabdilqaadir aljilaani uu leeyahy sheekh cabdilqaadir jilaani qof intaasoo dhan kaga fiican anigu dadkii aan la kulmay kuma jirin uu leeyahay sidaasoo kale wuxuu leeyahay sheekhu asagoo ninkaas sheekh ah oo caalimka oo aqoonta sare leh ahaa haddana dadka iskalama weyneyn oo dadkii fuqarada ahaa iyo masaakiintii sheekh jilaani aan soo sheegnay inay 70,000 oo dadka wax ka dhagaysanaya ay soo fadhiisan jireen xalqooyinkiisa isuma arag qof saroon loo soo dhawaa karin oo islaamaha iyo caruurta iyo dadka baahan iyo ka carara ma ahayn markaas wuxuu leeyahay walaqad kaana maca jalaalati qadrihi wa culuwi manzilatih wuxuu ahaa asagoo sheikhaas sare ahaa oo aqoonta leh oo dadka waaweyn iyo kulli ay ku xiran yihiin intaasoo kun ay wax ka dhagaysanayso wasicati cilmihi aqoontiisuna saas ay u badneed yaqifu maca saqiir wa yuwaqiru lkabiir inuu dad saqiirada iyo caruurta yaryar uu u istaagayo la istaagayo dadka waaweyn oo da-daana uu karaamaynayo ixtiraamayo sidii rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uuba hadda dardaarankiisi ahaa xadiidka abi daawuud uu warinayay iyo tirmidi man lam yarxam sagiirana wayacrif xaqa kabiirina falaysa mina qofka aan keenna yar u naxariisan kan weyn xaqiisana keenna weyn xaqiisana aan garan nagama mid ahan riwaayada tirmidina ay ahayd laysa mina man lam yarxam sagiirana wayacrif sharafa kabiirina nagama mid ahan qofka keenna yar aan u naxariisan keenna weyn sharafkiisana aan aqoonsan marka shiikhu asagoo sidaas wuxuu leeyahay oo dadkii yaryara caruurta u istaagayay dadkii waaweynaa ixtiraamayay wayabda'u bisalaam salaamta uu ku bilaabayay dadkaasoo dhan wayujaalisu ducafaa'a wayatawaadacu lilfuqaraa haddana wuxuu la fariisanayay dadkii ducafada ahaa oo masaakiinta ahaa waa uu yacni u tawaaducayo ma lahayn iskalama sarrayne booskoodoo kaleu isdejinayay wamaa qaama liaxadin min alcudamaa'i wala alacyaan dadkii waaweynaayoo madaxda ahaa iyo kaabaqabiiladii iyo ganacsatadii iyo dadkaas bulshadu weynaysana weligiis uma istaagin oo waxa weeye sheikhu dadka masaakiinta huba jeclaaba inuu la joogo u naxariisto la istaago la fariisto la sheekaysto laakiin dadkaas waa weyn asagoo adduunyadooda ku weyneynaya ilaaha weyne waxa weeye sheekhu uma istaagi jirin markay u yimaadaan walaa alama bibaabi wasiirin qatu walaa sulطaan sheikhu wasiir albaabkiis iyo madaxweyne albaabkiisna weligiis ma istaaginba allahu akbar qofka sheikh ah oo cilmigiisa iyo diinkiisa ilaashanayo dhaqanka lagu yaqaano weeye madaxda haddii macruufka iyo wanaagga loo sheegayo waa la ogolyahay in lala kulmo laakiin adoo raba inaad wax weydiisatid adoo diinkaagii maaragtay muujinaya inaad u baahan tahay ninkaas madaxda ah adoo waxa ilaahay ku siiyey oo qiimaha sare leh aan ogeyn taasaa khatar ah waxaa kaloo sheekh jilaani uu caan ku ahaa deeqsinimadka iyo inuu dadka fuqarada iyo masaakiinta u quudiyo sida kutubta taariikhda ah oo dhan soo wada rarayaan wuxuu xaafid dahabi kitaabkiisa siyar o aclaami nubala kusoo rarayaa inuu leeyahay sheekh jilaani inuu yiri fatashtu alacmaala kulaha famaa wajadtu fiiha afdala min iطcaami طacaam acmaasha dhan ayaan baaray marka acmaasha fiiriyo si fiican u baaray kama helin wax ka fadli badan cuntada oo dadka masaakiinta lasii baahan oo waxa weeye hadda acmaasha markii laga hadlayo ma aha faradkii iyo waajibkii iyo laga hadli maayo khayrka kale ee faraha badan ee la bixinayo waxaa ugu fadli badan uu yidhi iطcaamu طacaam wuxuu leeyahay waxaan baaray oo fiirfiiriyey acmaasha yacni acmaashii sunnooyinka ahaa ee khayrkii faraha badnaa ee qofku ay ahayd inuu badiyo markii faradka laga soo tago kuma aanan arkin uu leeyahay wax ka khayr badan in dadka baahan la quudiyo oo cunto la siiyo oo dadkaas baahan caloosha loo buuxiyo wax ka khayr badan kuma aana aragu yiri wuxuuna sheikhu leeyahay awaddu low ana addunyaa biyadii fa uطcimaha aljiyaac waxaan jeclaa lahaa inta adduunyada gacanta la ii geliyo in dadka baahan aan ku quudiyo
meesha rag ay inta taajiriin iyo aqniye noqdeen ay iska kaydsadeen bangiya iskaga shubteen meel ka buuxsadeen lagana yaabo dad inaysa waxay cunaan aysa helayn waxaan jeclaa lahay uu leeyahy inta gacanta aniga la ii geliyo inaad dadka baahbaahan ka nooleeyo oo quudiyo kafii mathquubatun laa tadbidu shay-a gacantaydu waa waxa weeye waa daloosha huu leeyahy shiikhu waxa weeye waxbana ma celi karto oo wuxuu leeyahay wixii la ii dhiibo ma haysan karo meel qasnad kuma kaydsan karo ee waxaan jeclahay inaan bixiyo oo dadka aan siiyo low jaaanii 1000 dinaarin lam ubayitha haddii 1,000 diinaar ay gacanta iisoo gasho maalan $1,000 oo kale gacanta hadda iisoo gasho waxaan jeclaa lahaa inaysa igu waabaraysan ee dadka masaakiinta u baahan calooshooda ay gasho uu leeyahay hadda waana dhaqankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo haddii hanti ay soo gaarto uusan jeclayn inuu iska kaydsado ee uu nebigu jeclaa in uu maaragta bixiyo ilaahay subxaanahu watacaalana itcaamu tacaamka dadka baahan oo agoomihii iyo fuqaradii iyo masaakiintii iyo dadkii dumarkii aan wax u gargaaro lahayn iyo waayeeladii iyo waxaasoo dhan in la quudiyana ilaahayna qur-aanka aad ayuu ugu ammaanay ilaahay wuxuu ku tilmaamo xataa buur adag oo la korayo uu ku tilmaamo ay tahay qofku inuu isku majiiro falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba ilahay wuxuu leey war muxuu buurta iskugu jiiri waaye muxuu iskugu majiiri waaye oo buurtaas u kori waaye buurtaasi maxay tahay waa addoon la xoreeyo hadda waqtigan ma joogno addoommo ma joogaan yacni maxaa kuwa jooga ka mid ahoo buurtaas ka mid a ilaahay uu sii tilmaamay aw itcaamun fii yowmin dii masaqaba in maalin gaaja jirto oo la baahan yahay qof baahan aad wax siidid oo cunto aad siidid oo yuu yahay qofkaasi yatiiman daa maqraba agoon oo qaraabo ah oo baahan inaad maalin gaajo aad quudaysid waa buur weynood kortay aw miskiinan daa matraba ama miskiin baggiisu dhulka ku dhegay calooshiisa ay dhulka ku dhegtay aan waxba beerkiisa u wehlin miskiinkaas inaad muxuu wax u sii waayo ilahay wuxuu ka dhigay wax weyn oo adag nabigeena suuban calayhi salaatu wasalaamna markii la weydiiyey ayu sadaqati acdam maxaa sadaqa ugu weyn may xadiidka waxay ahayd ayul acmaali afdal maxaa acmaasha ugu fadli badan nabigu markii la weydiiyey xadiidkii bukhaari iyo muslim inta ahaaba ama ayul islaami khayr ay ahayd xadiidka naskiisu islaamka kee ugu khayr badan oo acmaasha islaamka maxaa ugu khayr badan yacni faradkii markii laga soo tago waxyaalaha kaloo khayrka oo fara badan oo qofku ay tahay inuu sameeyo maxaa ugu sii fiican markaasuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam tutcimu aطacaam wa taqra'u asalaam calaa man carafta waman lam tacrif waxaad quudinaysaa tacaamka raashinkiiaad bixinaysaa dadkii baahnaa ayaa wax siinaysaa waxaa kaloo salaamaysaa qofkii aad taqaanid iyo qofkii aada aqoon intaba nabigeenun calayhi salaatu wasalaam markii uu madiine yimid hadalkii koobaad uu ku bilaabay ee uu soo haajiray waxa uu ahaa yaa ayuha annaas afshu salaam wa aطcimu aطacaam wasalluu wannaasu niyaam tadkhuluuna aljannata bisalaam war dadkaanow salaamta faafiya dadka isi salaama dhexdiina waa isjeclaanaysaan cuntadana quudiyo dadka baahan wax siiya salaatuleylkana tukada dadkoo hurda jannada ayaa nabadgelyo ku gelaysaan ilaahayna waa tuu sii ammaana dadkaas wax quudinayo wayuطcimuuna aطacaama calaa xubihi miskiinan wayatiiman wa asira waxay maaragtay cuntadii siinayaan oo quudinayaan ayagoo cuntadii weliba jecel oo miskiinkii iyo faqiirkii miskiinkii iyo agoonkii iyo kii maxbuuska ho la xirtay madax furasho loo haystay dayn ha ahaata wax xirta noqto hadda wixii o dhan soo gelaya ay quudi jireen ayagoo le ilaahay dartiis kaliya ula jeednaa goorma marka calaa xubihi imaanaysa adoo hantida jecel marka aad bixinaysa waa goorma waa markii nabiga la yihi calayhi salaatu wasalaam ayu sadaqati afdal sadaqa maxaa ugu fadli badan ee nabigu u yihi calayhi salaatu wasalaam anta sadaq wa anta saxiixun shaxiixun takhsha alfaqr inaad sadaqaysatid adigoo caafimaad qaba haddana ku bakhiilaya ee ka cabsanaya faqri wa ta'mulu alghinaa hodantinimana rajaynayo inaad shilinba shilin saartid rajaynaya walaa tumhil xataa idaa balagat iruux qulta lifulaanin kada walifulaanin kada waqad kaana lifulaanin kada ha sugin inaad gaartid waqtiga markii dhuuntu ay kuusoo gasho dhimashadu oo aad naftu kaa bixirto inaad tiraahdo hebel waxaasuu leeyahay hebelna waxaasuu leeyahay hebelna waxaasuu lahaa yacni intaad fiyowdahay ikhtiyaarka leedahay wax la sii bax marka sheekh jilaani taarikhdiis haddaan ku laabano sidaas ayuu aad u jeclaa inuu masaakiinta wax siiyo dadka baahan wax siiyo fuqarada quudiyo
aad ayuu u jeclaa. sidoo kalena dadkii xertiisa ah wax ka bartay waxyaalaha uu aad ula dardaarmi jiray waxaa ka mid ahaa oo uu aad ugu dhiirigeli jiray sadaqada iyo gacan furnida waxbixinta iyo dadka baahan inay wax u dooraan wayu'thiruuna calaa anfusihim inay ku dhaqmaano yacni ayagoo wixii u baahan dadka kasii liita inay fiiriyaan. iyo wuxuu ku boori jiray markastaba deeqsinimadka iyo inaysan bakhil noqon. qofka raba ilaahay agtiisa inuu wax ka gaaro oo ilahay agtiisa qof khayr badan noqdo oo rabbi uu jeclaadana waxyaalaha lagu yaqaano waxaa ka mid a deeqsinimadka. markaasaa sheikhu wiilkiisa asagoo la dardaarmaya wuxuu dhihi jiray calayka yaa waladii an tasxaba alaghniyaaa biاltacazus wاlfuqaraaa biاtadalul. wiilkaygu ku dadaal dadka madaxa aqniyada hodanka hantiilayaasha ah inaad kula saaxiibtid cizo iyo sharaf oo aadan muujin inaad u baahan tahay inaad ka kaaftoontaoo la siman tahay mooji ama aad ka sarraydid. laakiin fuqaradii marka masaakiinta la joogtid isu jilci inaad la mid tahay mooji ha muujin iskala weyne iyo maaragtay waxaasoo dhan yaysa kusoo gelin. haddii aan soo qaadano qaab ama muuqaalna tusinaya sheekh jilaani siduu ugu naxariis badnaa masaakiinta ugu turi jiray waxa weye kutubta taariikhda sida ay qorayaan waa kasoo sheegana sheekh jilaani inuu deeqsi ahaa inuu wanaag badnaa gacantiisu ay furneyd xoolahana uusan meel ku kaydsa jirin isagoo ku dadaalaya wuxuu ku bixi jiray wujuuhul khayr yacni wadooyinka khayrka iyo meelaha looga baahan yahay sidii ilaahay subxaanahu watacaala uu faray ayuu ku bixi jiray. maxaa yeelay asakhaawatu khuluqun min akhlaaqi alambiyaa. deeqsinimadku waxa weeye waa dhaqankii rususha ama akhlaaqdii ambiyada mid ka mid a. kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ajwad annaas. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa makhluuqa kii ugu deeqsisan waatay bukhaariya ay ku taalay. marka sidaas ayuu dadkana ugu dhiiri geli jiray in oo uu maaragtay dadku ay sakhiyo noqdaan ay deeqsiyo noqdaan asagoo weliba xertiisa iyo dadku waxbaraya u sheegaya ina allaha tacaala lam yakhluq weliyan bakhiila. ilaahay qof weli ah oo bakhiilah ma abuurin oo awliyadiisa ilahay qur-aanka uu ku leeyay alaa ina awliya allahi laa khawfun calayhim walahum yaxzanuun. dadkaas ilaahay awliyadiisa aayaddaas looga sheekaynayahay bakhiil kuma jiro oo inta aad gacan xirnaatid ee aad wixii ilaahay ku siiyey meel dhigatid ee fuqarada iyo masaakiintu ka dhintaan haddana ilaahay agtiisa kama gaaraysa halkaasoo mutaqiinta dadka ah oo ilaahay dadka uu jecel yahay kama mid noqonaysid. raxmadiisa iyo turitaanka oo bulshada u turayo iyo fuqarada iyo dadka bahan aad ayay u badneed isagoo ku dhaqmaya xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih. ilaahay addoonka wuu u kaalmeeyaa inta addoonka uu u kaalmaynayo walaalkiis. marka sidaas ugu turi jiray dadkii daciifka ah taagta daraa agoomihii masaakiintii dumarkii garoobka aha cidna u maqnayn dadkii kaleoo maxbuusiinta aha wax soo daaya lahayn oo dayn loo xirtay wax kale loo xirtay kuwii kale oo baahnaa kulli waa u baari jiray. sidii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisa ay ka mid ahayd inuu dadka ducafada baaro masaakiintiiyo fuqarada uu yidhaahdo aawe hebel uu nabigu caawiyo garoobadii oo uu nabigu la fariisanayo masaakiintii. sidaas ayuu sheekhu ku dhaqmi jiray. maxaa yeele xadiidkii rasuulka ayaa ahaa sidii oo qof kasta ay tahay inuu ku daysado allaahumma axyinii miskiinan wa amitnii miskiina waxshurnii fii zumrati almasaakiini yowma alqiyaama. ilaahayow anigoo miskiina in nooleh oon kibir iyo isla weyni waxaaso dhan aysa ugu jirin ilaahu in nooleh. miskiin anigu ahna idil oo aan kibir iyo isla weyni waxyaalahaasoo dhan aysa isoo gelin. maalinka qiyaamana masaakiinta dadka ah jamaacadooda ila soo kulmi dadkaas igu dar meesha aad kusoo kulminaysid. nabigeenana uu lahaa calayhi salaatu wasalaam ubquunii fii ducafaa'ikum fainakum inamaa turzaquuna watunsaruuna biducafaa'ikum. war iga dhex raadiya dadkiina taagta darano masaakiinta ah waxa laydinku arsaaqaya o laydinkugu hilinayana waa kuwaas oo inta kuwaas aa u hilinaysaan inta u gargaaraysaan inta isu turaysaan inta kuwaas ka warqabaysaan ilaahay baa idinka warqabaya uu leeyahay. marka sidaasuu sheekh jilaani u ahaa imaam zaahida mutawaadic oo tawaaduc badan oo kibir lahayn fuqarada jecel masaakiinta jecel rasuulka calayhi salaatu wasalaam asaga oo ku daysanaya. waxay soo guurinayaan aimadii waqtigiisa in habeen kasta uu shiiku cunto badan kariyo u yeerayay masaakiintii martidii dadka baahan uu la fariisanayay la sheekaysanayay
ardaydiisii iyo kulli ay wax la cunayeen uusa qof kastaahina u malaynayay inuu sheikhu qofka uu ugu qadarin badan yahay asaga ay tahay qof kasta wuxuu islahaa war qofka maanta ugu tixgelin badan yahay waa adiga waa sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisa ay tahay qof ay ahayd qof kastoo muuminana la rabo in uu uga daysado markaasuu leeyahay qofkii baqan waraawa hebel xaalkiisa ka warrama war soo yahay asagoo yani ilaalinaya dadka jacaylkii kala dhexeey iyo xiriirkii ka dhexeey qofkii qalad ka gala wuu iska saamaxayay maxaa yeelay waa dhaqankii rasuulka calayhi salaatu wasalam akhlaaqdii rasuulka waxay ahayd inuu nabigu fuqarada jeclaa masaakiinta jeclaa la fariisan jiray janaasadooda xaadiri jiray soo booqa jiray kii xanuunsan faqiirna uusan yasi jirin boqorna uusan nebigu ka haybeysan jirin calayhi salaatu wasalaam nicmada ilaahayna uu weynay jiray si kastay u yar tahay uusan nicmada ilaahayna nebigu wax ka sheegi jiray marka sidaas ayaa waxaa dadka culummada oo lagu yaqaana ilaahay subxaana wa tacaala inay amarkiisa qaadanayaan ee ay maaragtay ku dhaqmayaan shareecada dadka waxyaalaha lagu yaqaano taasaa ka mid a sheekh jilaani waxa uu caan ku ahaa in uu dadka faro kitaabka iyo sunnada inay raacaan inay diinta ku dhagaan inay ku camal falaan ayaa caan uu ku ahaa uu dhihi jiray asagoo u digaya dadka iska sheeganaya dad waxaa laga yaaba qof asagoo shareecada islaamka o dhan baalmarsan oo wax allaal wuxuu xunuu rabo samaynaya ama isku kadsoomo maqruura inuu yani haddana sheeganayo inuu meel sare gaaray dadkaas sheikhu asagoo u digaya wuxuu lahaa طريقتنا مبنية على الكتاب والسنة وددنا waxay ku dhisan tahay kitaabka iyo sunnada quraanka ay ku dhisan tahay faman khalafahuma falaysa minna qofkii na khilaafahay naga mid ma ahan marka waxa weeye qofkii rababa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka uu jecel yahay ku darsamo waa inuu kitaabkii sunnada ku dhaqmaa markaas wuxuu dhihi jiray ijcal ilkitaaba wasunnata janaaxayka tir bihima ila allah kitaabka iyo sunnada waxaa ka dhigataa labada garab ee aad haysatid oo ilaahay ugu duul macnaha kitaabka iyo sunnada ku dhaqan ku dheg haddaad rabti ilaahay inaad subxaana wa tacaala aad u dhowaatid oo ilaahay uu ku jeclaado oo ilaahay uu ku doorto saalixiintiisa iyo dadka wanaagsan ka mid noqotid kitaabka iyo sunnada ku dheg labadaas kaasho uu leeyahay laakiin inaad kitaabka iyo sunnada aad ku dhaqmin shareecada ku dhaqmin ilaahay ag martid haddana waxaa rabtay aad sheegatid haddana aad tiraahdid khayran gaaraya ma jirto marka wuxuu dhihi jiray walaa takhtara bilqiili walqaal waa la yiri iyo waa uu yiri iyo hadallada aan meel sal ku lahayn ha ku kaadsoomin taas macnaheedu ma ahan sheekhu inuu diidayo yani culumtii islaamka oo fiqigii iyo culumtii lagala soo dhex baxay oo dhan ma diidayo yani wuxuu diidayo wax allaala wixii shareecada islaamka aan lug ku lahayn iyo inaad xaqi intaa ag martid waxaa rabtid iyo wax aan macnaha meel haysan hebelaa yiri iyo iska qabsatid waxa weeye dadku waa jecel yahay on qiso xataa maanta waa aragnay qisooyin been ah wax kasta inta la faarafikeeyo qof wuxuu ku leeyahay waxaas inta soo qor wuxuu leeyahay waxaas haddaa akhrida waxaasa helaysa waxaas haddaa ka fogaat waxaasa helaysa sii faafi haddii aada faafin khayrka dhana kaa tegaya albaabada kaa xirmaya waxyaalahaasoo dhan waa baadil waa wax shareecada islaamka agmarsan xataa wax fiican oo khayra hadduu qofku yihiin wax uu soo diray ay adkaariya khayr tahay ma wixiisa qur'aanka iyo sunnaduba ma dhihin haddaada waxaas degdeg ku faafin albaabada ayaa kaa xirmaya kitaabka ilaahay laguma dhihin kitaabka ilahayna ma dhihin haddaada intaasoo daqiiqa ku faafin maanta faafin albaabadaa kaa xirmaya hadalka adiga aa isku soo duwatay miyaa dadka albaabada ka xiraya ama naarta gelinaya marka waa bilqiili walqaal waa baadil waxaasoo dhan qof ayaa maanta o dhan wuxuu samaynaya wuxuu soo aruuray oo samaynaya intaas hor waa dadka inay ku mashquulaan oo uu leeyahay waxaas same waxaas akhri 24 saac dadka u diraya laakiin diintii barashadeeda xataa hal fasal xataa weysada siduu u saxdo uusan dan ka lahayn marka taasoo dhan waa dhibaato wey markaasuu sheekh dhihi jira war dadkaygow war igu dayda war waxaan idiin sheegaya qaata war anigu rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan rabaa inaan ku daysado oo raacaya cunitaankiisa cabitaankiisa guurkiisa iyo xaaladihiisoo dhan wixii nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ayaan ku daysanayaa war igu daysada aan ilaahay subxaana wa tacaala ku xiranno aan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu naga rabay la nimaadne wuxuu dhihi jiray cibaadada oo laga tagaahi tarku lcibaadaat almafruuda zandaqa qofku inuu cibaadaadkii waajibka ha ka tago waaba munaafiqnimo wartikaabu lmaxduuraat macsiya dunuub inuu ku dhacana waa macsiyo ilaahay uu ka gelaya iyo dembi marka haddaad faradkii fududaysatid salaadii subax ka seexatid waxa aragtay kusoo jeed caawa salaadihii fududaysatid
waxa weeye agtiisa zandaqaad kata u fiirso shareecada islaamku sida ay sheegtay ha sheegan weliga sheekh jiilaani inaad ku xirantaho jeceshahay adoo cibaadada fududaysanaya walaa tasqutu lfaraa'idu can axadin fi xaalin min alaxwaal waxyaalaha faradka ah qofna kama dhacaan hadaladiisa ka mid ahaa marnaba inta caqligiisu joogo qof kama dhacaan ilaa inuu hadda waali iyo xad kale uu galo qofku mukalafbaba uu ka baxaba marka sidaas ayuu sheekh jiilaani allaha ka raali noqday oo mar kastaba uga digi jira dadka wuxuu dhihi jira war shareecada ku dhaga war diinta ku dhaga war aamina war qof kastaahe ogaada inuu qof bini aadam ihoo gafi karo waxyaalaha uu caanka ku ah waxaa ka mid ahaa markuu dadka la dardaarmayo yaa bunay iyaaka an tandura ilaa shaykhi kaanahu macsuum inankaygo iska jir inaad sheekhaaga aad aamintid oo u aragtid inuu macsuum yahuusa gafayn inamaa huwa basharun yukhطi'u wa yusiib waa bini aadam gafi kara saxmina kara fain ra'ayta minhu mukhaalafatan haddii aad yani aad wax shareecada islaamka khilaafsan ku aragtid ka fogow wax shareecada khilaafsan haddaa aragtid ha ku raacin oo fiirso laakiin haddaad tirahdid sheekhayga wax allaala wuxuu sheego waa magafi khatar wa maanta marka ayna soomaalida qaybaheedoo dhan qolo kastahay sheikheedu wax qalada hadduu ku dhaco dad fara badan wey hadda kulli maaha dadka qayb ka mida yani qolo kastaba waa laga helaya shiikhoodu qalad kastuu sameeya waa u cududaarayaan qolada kalena qalad kastay sameeyaan waa cirka la marinaya marka taas macnaheed waxay keenaya in qofku aaminsan yahay sheikhiisa inuusan gafayn taasna khatar weeye shareecada islaamkuna ma ogola marka waxaa muhima inaad haddaad sheekh jiilaani jeceshahay inaad saas shareecada ugu dhegtid casharkeena intaasoo ku koobayna wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh